السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دمانتي من أكستو عالم كاتك جوكتان بكلانتي وعنا ونكسن كسو دوادا أيوب أحمد بودكاست يا موضوعنا مانتا مركلة ديبو بلو. haddaba su'aasha ay dhici karto inaad maskaxda iska weydiinayso ee maxaan dib u bilaabaa aynu marka hore ka jawaabno. waxaa laga yaabaa in hadafyo iyo goolo nolosha tan aad leedahay. qof kastoo ina ka midaba damac baa ku jira. qof kastaba hankiisu meel fog buu tiigsanaya. laakiin bini aadamku waxa ay ku kala tagsan yihiin kuna kala duwan yihiin waa dhanka ficilka. waxaa dhici karta goolal iyo hadafyo iyo damacyo waaweyn oo nolosha aad leedahay in wax kaa baajiye ay jiraan. waxaa dhici karta in cabsi darteed ay tahay. waxaa dhici karta inaad kaba quusatood mar isku dayday ku fashilantay. waxaa dhici karta in aad ka wahsanayso. waxaa dhici karta in aad ka mid tahay dadka yiraahda berri baan qaban. laakiin berridu mid xaqiiqowda oo qofku uu wax qabto marnaba ma ahan. waa beenta naftu hadda ay isku maaweeliso iskana dhaadhacsiiso in berri ay wax qaban karto. xaqiiqaduna waxay tahay kan hadda aad tahay qof ka duwan berri ma noqon doontid. qofkan unbaad mar walba ahaan. xaalad kasta oo noloshaada ku hortaalla oo ka hortaagan hadafka nolosha aad rabto inaad xaqiijiso waxaad mar walba oo ay ku hortimaadaba isa soo hordhigtaa. xaaladani marnaba isbedeli mayso. sidan baa cudurdaarku weligiiba u taagnaan. quustu sidan bay weligeedba u jiri. cabsidu weligeedba sidan bay kugu soo laaban. haddaadan adigu go'aansan oodan ficilkii la imaan waxa maskaxda aad ku haysaa xaqiiqoobi mayaan. si kale haddii hadalka loo dhigana isbeddelku wuxuu ku jiraa howlqabadka. isbeddelku waxa uu ku jiraa urriyadaadu ay ku rumoobaysaa waa inaad ficil la timaado. haddaba midda koobaad waxay tahay ka jar noloshaada wakhti lumiska, xanta, sheekada aan macnaha lahayn, social media iyo wixii la halmaala. qofku markuu rabo noloshiisa inuu isbeddel la yimaado kow meesha ugu horreysa ee ay tahay inaad weerarka ku qaadaa waa wakhtigaygu xaggee aadaa. 24 saac ee bini aadamku dhammaantood ay ka siman yihiin baad adiguba haysataa. qof kasta oo maanta aad arkayso waxa uu nolosha gaaraya iyo waxa uu xaqiijinayo dhan waxbarasho hadday noqoto, dhan lacag hadday noqoto, dhan ganacsi hadday noqoto, waxa uu adiga ku dheer yahay waa wuxuu si fiican naftiisa uga fiirsadaa meesha wakhtigiisa uu gelinayo. si kale haddii loo dhigo waa bakhayl. waxayna ku bakhaylaan inta badan wakhtigooda. meel aan wax macnaha ku soo kordhinayn wakhtigooda lama aadaan. haddii meel lagaa casuumo waa inaad isweydiiso meesha tan waa layga casuumay waa sax laakiin maxaa iga soo gelaya. kama hadlaya meesha tan haddii aroos lagaa casuumo. aroos haddii lagaa casuumo waa qasab inaad tagto, waa ceeb inaadan tegin. laakiin sida kale haddii saaxiibaday ku yiraahdaan kaalay meelahan aynu iska soo caaweyno hase yeeshee waxyaabo kugu taagan ay jiraan waa inaad diiradaada saarto waxa dantaadu ay ku jirto. waa inaadan cid walbaba meeshay kaaga yartay iska aadin. haddii kale wax macnood u taagan tahay nolosha tan ma jiro. waa xaqiiqo in dadka qaar ay ku oran doonaan waad isla weyn tahay, waad kibir badan tahay, waxaad iska dhigtaa waxaadan ahayn. waxyaabo badan oo dadku kugu oran doonaan way jirtaa. laakiin waxaasoo dhan dhinac iska dhig. waxaad eegtaa dantaadu maxay ku jirtaa. iyagu waxay doonaan baa yiraahdeen. ilaan qof kastoo bini aadamihii marka uu hadlo oo uu adiga wax kaa sheegayo naftiisa uunbuu hadlay, dantiisa uunbuu u doodayaa. dad badanoo waxaa jira saaxiibadaa ka mida oo ku dhaleecaynaya marar fara badan, kuguna dhaleecaynaya in aadan wakhti la qaadan. laakiin sababtay kuu dhaleecaynayaan haddaad si fiican ugu fiirsato waxaa kuu soo bixi doonta in 90% aysan ahayn wax adiga dantu ay kugu jirto ee waa wax iyagu dantooda ay ka dhex arkaan. meeshan kama hadlayo haddii saaxiibada ay kugu yeerayaan noloshaada inaad wax noqoto oo noloshaada isbeddel la timaado oo hadafyadaada aad gaarto oo sidan hadda aad u nooshahay aysan saaxiibadaa kula jeclaysanayn ee meesha ay joogaan iyo goolashoodan ay xaqiijiyeen iyo noloshoodan isbeddelka weyn ay ku sameeyeen oo kale inay kula rabaan taas waa goonideeda. laakiin siday dadku u badan yihiin inaad wakhti la lumisay rabaan, inaad wakhtigaaga dayacdo, siday iyagu yihiin oo kale inaad la noqoto. taa weeye tanaan ka hadlaya. wakhtigaaga waa in aad u ilaaliso sida dheemanka iyo dahabka loo ilaaliyo. dhanka kale way dhici kartaa dahab iyo dheeman haddii uu kaa lumina dib u hesho. laakiin hal daqiiqadna ha noqotee adduunka lacagta taalloo dhan haddii lagu siiyo ma soo celin kartaa? waa maya. qiimaha uu wakhtigu joogo maalinta aad fahanto wakhtigaagana aad ku baqaysho meel dantaadu ay ku jirto mahana meel kalena aadan ku bixin isbeddelka iyo hadafka iyo gool kastoo maanta aad ka cabsanayso, mid kastoo dib u dhigayso, mid kastood ka wahsanayso, xaqiiqa ahaan baad u arki doontaa inaad xaqiijin karto. mid baana u baahan inaad fahanto. kuma oranayo shay walbaba nolosha tan waad gaari kartaa, laakiin waxaan ku oran waa macquul inaad gaarto. labadaas waxay ku kala duwan yihiin. haddaan ku iraahdo waxa waad gaari kartaa dee sababo badan oo macquul ay tahay oo dan la gaari karin baa jira. waxaa dhici kartaba intaasoo dhanba inaadan noolaan.
hadafkan waxaa dhici karta inuu adiga kugu qaadanayo 2 sano ama 3 sano ama 4 sano laakiin ay ku qoran tahay sanadka dambe inaad dhimato kuma oran karo marka 100% shayga waad gaari kartaa laakiin waxaan ku oran waa macquul aniguna fahantayda wax kastoo noloshayda maanta aan samaynayo ee hawlen wado agtayda waxay ka yihiin macquul laakiin kama ahan 100% waad gaari kartaa way ajashayda iyo waqtiga ilaahay iyo qorimoogii intay leegtahay waa inaad taa mar walba ku talagalsanaato waxaan iraahdaa waxyaabaha qofka bini'aadamka riixa ee ku kalifa subax walba inuu kaco oo naftiisa dirqiyo ayay ka mid tahay adduunkan inuu ka tagi doono marba haddii urgency-gaas uu jiro nolosha tan wax fara badan baad xaqiijin karaysaa laakiin haddaad taa dib isaga dhigto ood ka dhigto wax kaa fog waxaan dhiman doonaa 60 sano markaan gaaro yaa ku ballan qaaday cidina kuma ballan qaadin marka waa inaad waqtigaaga ku baqaysho ood ogaato adduunkan waad ka tagi doontaa maadaama adduunka ay xaqiiqo tahay inaad ka tagi doonto lama hubo gool kastaba inaad gaari karto laakiin waa macquulkaasaa qof kasta oo rajo weyni ku jirtaana uu ku socdaa nolosha tan waxna ku xaqiijiyaa midda labaadna waxay tahay in aad barato xirfadaha aad iskaa ugu shaqaysan karto tani waxaan oran karaa adduunyadan maanta aynu joogno waa xornimada qof kastaaba uu ku riyoonayo inkastoo xornimadu iska xadidan tahay una baahan tahay mowduuc kale oo gooniye weeye xornimada horta maxaa tahay in la qeexo la isdul taago haddana waxyaabaha qofka bini'aadamka uu xornimada ku dareemo ayay ka mid tahay marka uu xirfadda isagu iskiisa ugu shaqaysto inuusan shirkad u shaqayn inuusan qof kale hoos iman inaad adigu qof isu taliya noqoto markay noqoto dhanka dhaqaalahaaga tani waxaan oran karaa waxyaabaha adduunka maanta ninka raggaahi ay lagama maarmaanka tahay inuu diiradda saaray ka mid tahay kuma lihi qofna ha u shaqayn oo waa qasab qof kastaaba inuu qof u soo shaqeeyo marka hore lacagtii aad urursato marka qaar bay lagama maarmaan tahay xirfadaha qaar in aad qof kale u soo shaqayso ayay kaaga baahan tahay bilowgeeda ugu horeeya waxyaabaha meelaha adkaysiga lagu barto meelaha maamulka lagu barto meelaha sida wax loo iibiyo lagu barto ayay ka mid tahay waqtigan aynu maanta joognaana la mid maaha waqtiyadii hore isbeddello waaweyn baa adduunka ku socda baro AI baro sida fiidiyoda loo edit garayo baro sida wax loo iibiyo isbar waxyaabahan oo dhammi iyaga oo in badan oo ka mid yahay ay bilaash yihiin bay internetka dhex yaalaan laakiin haddaad waqtigaaga kala baqaysho ama aad tirada hadda ma baran karo ama luuqadii ma aqan baro luuqadda maxaa kuu diidan maxaa kaa hortaagan maxaad haysaa oo muhiim ah oo noloshaada isbeddelka aad raadinayso kuu rumaynayo hadda waqtigaaga gelisaa xaqiiq ahaan waxaa kuu soo baxaysa 90% waqtigaagu inuu macno darro kugu dhaafo kolley waqtigani wuu ku dhaafi midda ugu daran ee dadka badi hesha waa marka naftu ay tiraado ma 3 sano soo socota ma 4 sano soo socota ma 5 sano soo socota laakiin mid baan ku hubaa 5 sano ee aad isleedahay waa wax aad u tiro badan kolley way ku dhaafi doontaa ha kugu dhaafto naftaada adoo wax qabanaya yaysan kugu dhaafin adoo meel iska fadhiya oo naftaada le maya waqtigaas waa tiro badan yahay ama marmarka qaar waxaa laga yaabaa naftaada inuu kusoo hordhigto ma $3 keliyaan ka samaynaya samee $3 adduunyada meel bay dadka qaar waxay u tahay badbaado weyn inay $3 maalin kasta helaan adigu waxaa laga yaabaa inaad yasayso qofku inta uu yasayo oo oranayo ma $100 ma $5 ma $6 intaad leedahay nolosha meel gaari maysid Allah subhanahu wa ta'ala meelaha uu ina ku imtixaamaya ka mid tahay wax yar baa lagu dhiibi bal sidaad yeesho qalbigaad ka yasi marka laga yaabay afkeenadan ka oran waa in halka $1 uu kula weynaado waa in $1 uu $1 million kula ekaado kuma qabanayo wax $1 million aad ku qaban kartaa laakiin xaqiiq ahaan waa inuu kula weynaado oo tirada alxamdulillah maanta $1 baan sameeyay sharaf waxaad leedahay markaad adigu naftaada goonidaada adoo waqtigaaga ku socda cidina saacadda ku hayn markaad shaqaynayso xornimada ay tahay nin kastaaba inuu xoogga saaraa waatan laakiin inta aad leedahay waxaan rabaa shirkad hebel inaan u shaqeeyo oo hamigaaga dhanba uu ku qufulay inaad cid weligaa u shaqayso way adag tahay xornimada dad badani ay ku riyoonayaan inaad gaarto haddaba naftaada ee ay baro oo waxaad barataa waxyaabaha kale ee xirfadaha ah sida fiidiyoda loo edit garayo hadda maanta way sahlan tahay in YouTube channel video intaad furato iska soo dhigto maalin walba aad samayso daabacdo sheekooyinka bini'aadamka waxyaabo fara badan oo dhacay nolosha tan inaad soo qaadood ka sheekayso qof kasta oo maanta YouTuber ama qof kasta oo si waali ah oo aad la yaabto wuxuu edit garaynaya waa bini'aadam adiga kula mid ah waqtigiisa uun buu geliyay adigu waxa aad kala bakhayleysaa waa waqtigii marka haddaba waqtigu kulli waa ku dhaafaya maadaama uu waqtigani kugu socdo kuna dhaafayo ha kugu dhaafo noloshaada isbeddelka aad doonayso sidii aad u gaari lahayd midda saddexaadna waxay tahay ka shaqee ruuxdan kugu jirta oo ku edbi kuna toosi waddadii uu ilaahay kaa doonayay tani waa meelaha dad badani ay qaladaadka ka galaan
qaladkani waa qalad aan inta badan hadduu qofku la yimaado uusan ka soo kaban karin waa tan keenta dad fara badani inay goolashan iyo hadafyadan adigu maanta aad rabta inaad gaarto ay xaqiijiyaan dhanka kale markay gaaraan heer sare markay gaaraan oo ilaahay uu dhanka dhaqaale nolosha u waasiciyo haddana gudaha inay ciriiri ka dareemayaan marka aad salaada dib u dhigto oo shaqada horu mariso wixii ilaahay kaa doonaya lama dhiman shaqayso waa sax laakiin waa in salaadu ay tahay waxa kuugu horeeya qur'aan akhriskaagu waa inuu qayb noloshaada ka mida uu noqdo ruuxdani shaqo gooni u baahan tahay haddaadan shaqada gudaha qabanin marar fara badan waa meelaha ciriirka uu ka yimaado oo qofku intuu adduunyada tan waxyaabo fara badan xaqiijiyo oo guryo dhisto oo baabuur kala duwan gato oo intaas oo ganacsi shaqaale badan baa u shaqeeyo laakiin holac baa gudaha kaga shidan ruuxdu inta aysan ku toosnayn wixii rabbi uu ka doonayay oo aysan waafaqsanayn sidii alla uu kaa rabay xaqiiqo shaki kuma jiro in qalbigan aad ka gubanayso muhiimadda ugu weyn qof kasta uu u dadaalay adduunkan maxay tahay inaad deganaan qalbiga ka dareento caruurtaada qanaaco kuma dareemaysid xoolahaaga qanaaco kuma dareemaysid xaasas badan hadduu ilaahay ku siiyo nintahay kuma qanci doontid wax walbaba waxaad dareemi nusqaan inay ku jirto haddana ilaahay nolosha waa ku waasac yeelay oo in badan oo bini aadam ka mid waxyaabo aysan haysan baa agtaada si fudud u yaala waxaa dhici karta adduunkoo dhan inaad vacation kusoo dhammayn karta lacagtaad haysata darteed haddana qalbiga ciriiri fara badan uu kaa saaran yahay midda marka fahanka u baahan baa waxay tahay noloshu sideedaba waxaa qofku uu ku dareemaa hadba barakadu intay laagtahay barakadu ama shaygu ha yaraado ama ha badnaade qanaaca qofka qalbiga looga buuxiyaa waxayna ku xiran tahay oo taasu ay salka ku haysaa hadba xiriirka aad rabbiga la leedahay sida uu saafi fayow u yahay haddii taa ay wax ka khaldan yihiin xargahaasu hadday hallaysan yihiin shaki kuma jiro walilaahi almathalu laclaa telefoonka guriga ama landline-ka haddii xarguhu ay hallaysan yihiin maxaa ka yeera sharqan baa ka yeerta qabababa dhegtaa ku xanuuni xiriirka marka ilaahay aad la leedahay mar walba oo uu toosan yahay mar walba oo uu hagaagsan yahay meeshan kuma liya caqabada arki maysid oo adduunkan baa caqabada ka samaysan adduun la arag yaaba caqabad la arag laakiin mar walba oo xiriirka ilaahay aad la leedahay uu hagaagsan yahay si walboo duufaanta iyo dabaysha adduunka iyo mushkilada lagugu furay u kacaanba qalbigaaga waa iska xasilloonaan haddiise taasoo ay kaa maqan tahay ama aad tahay dadka diinta u arka wax walbaba gadaal masaajidka loogu talagalay noloshayda iyo waxba iskama khus waxaan kuu hubaa nolosha tan ciriiri fara badan baad ku dareemi xarig kasta oo aad xirtana waxaa dhici karta inuu kaa kala furto qanaacadii qalbiga ee qofka bini aadamka ee nolosha uu raaxada ku dareemi jiray oo dhanna way kaa maqnaan haddaad rabto inay hagaagto naftaada toosi haddaad rabto noloshu inay kuu dhadhanto ood raaxa ku dareento ood farxad ku dareento qanaaco ku dareento xiriirka aad rabbigaa la leedahay toosi midda afaraadna waxay tahay maskaxdaada tababar maskaxdan kugu jirta ma jirtaa cid dunida joogto kula wadaagta qof daqiiqad ba ha noqoto intuu kaa qaato ku soo fakaraa miyuu jiraa dabcan maya ilaahay aduu ku siiyey aday gaar kuu tahay waa waxaad adigu leedaho ilaahay kuugu deeqay haddaynu martaa isla qirsannahay ma isku diidannahay in maskaxdaa hadba saad u brograam garaysa ay noqon dabcan maya maskaxdaada brograam garee waxaad ku brograam garaysaa waxa danteedu ay ku jirto meesha hadba adigu aad u ogolaato inay aado bay aadi maskaxdani haddii balaayo iyo baas iyo wax walboo niyadda kaa dilaya murugo xusuus horoo liidata hadday maskaxdaada ka buuxdo dhammaantood ba intaad dhinac iska dhigto waxaad ka fikirtaa wax kaloo wanaagsan waxaad ka fikirtaa noloshu way hagaagi doontaa bal sawiro shay kastoo adduunka maanta aad ku hanweyntahay wuxuu doonaba ha noqdee haddaad 100% wax aad og tahay oo maskaxdaadu ay u jeedo inaadan ku guul daraysanayn uu ahaan lahaa tallaabooyinkaad qaadaysaa see noqon lahaayeen waad degdegi lahayd laakiin waxyaabaha maskaxdaadu inta badan ilaa maskaxdu inay ina difaacdo oo waxyaabaha naftu ay dhibsato ama waxyeelada leh inayna ka ilaalisaa loogu talagalay waa sababta keenaysa gool kastoodan weligaa isku dayinoodan aqoonin markaad damacdo inaad u dhaqaaqdo oo hadafkaa fuliso waa sababtaad u baqayso maskaxdu difaac ahaan bay inoogu jirtaa marka maskaxdaada ay ku soo dhacdo in wax dantaada ah aad qabato ee baqdini ay ku taabato waxaad isa soo hordhigtaa sababta shaygan aad uga baqaysaa ma ahan inay balaayo ka soo socoto ama dhibaato ay kaa soo gaarayso oo markaan ka hadlaya goolashaada iyo hadafyadaada nolosha aad wax ku noqonayso kama hadlaya shay walba waxaan ka hadlayaa goolashaada iyo hadafyadaada aad nolosha tan rabto inaad meel ku gaarto markay cabsidaa ku soo hordhigto waxaad maskaxdaada ku program garaysaa in cabsidani ay ka imaanayso inaysan shaygan aqoonin horay umaysan tijaabin waa markii kuugu horreysay shay walbo marka noloshaada maanta aad ku hanweyntahay haddaad ogaan lahayd inaadan ku guul daraysanayn marka gaabin lahayd bay kula tahay
waa maya habeen iyo maalin baad u soo jeedi lahayd laakiin sababta koobaad ee maskaxdaadu ay shay walba dib ugaga hakanayso waa baqdintan kugu abuuran ee ah inaysan shaygan horay u tijaabin cabsidan sida kaliya marka uga tallaabsan kartaa waa inaad isa soo hordhigtay inay faalsa tahay cabsi jirta ma ahan waxaan aad ka baqayso haddii baqdintoodu dee wax cad oo loo jeedo oo qof walbaaba u qirayo taas waa goonideeda laakiin baqdinta ugu horraysa ee inaad wax barato badiba xaggee ka timaadaa waxay ka timaadaa dadka kale maxay talo ku oran doonaan shambiri sheekh laguma noqdo marka lagu yiraahdo bad wax walba faraha ka qaadi bini aadamku noloshooday nool yihiin qof walbaana tiisuu hadlay ee taada kama hadlo taada marka eeg maskaxdan waxaad ku program garaysaa wakhtiga ay seexanayso iyo wakhtiga ay soo kacayso iyo wakhtiga ay wax akhrinayso iyo wakhtiga shaqo aadayso iyo wakhtiga danteeda u dhaqaaqayso saacadda maalintaada kuugu muhiimsani waa saacadda ugu horreysa haddii saacadda aad huruddo oy ku dhaafto in fara badan oo maalinta ka midii way kaa qarribnaan waxaad marka maskaxdaada ku program garaysaa waxa danteeda ku jirto salaadeeda ha noqoto quraan akhriskeeda ha noqoto aqoon kororsi ha noqoto ganacsi inaad ka shaqaysa ha noqoto dadka wanaagsan oo saaxiib la tahay ha noqoto waxaad ku program garaysaa maskaxdan oo kaga adkaataa inaysan meel walba iska aadin oo wax walba dalaq iska oran waxyaabo fara badan bay nagu soo dhacaya shay walba kugu soo dhacaba hadda tirada waan fulin oo waan u dhaqaaqi de noloshaad way kharibmi waxyaabo fara badan oo tashwiish ahoon inaba nolosheena waxba ku soo kordhinba maalinteena ku soo dhacaya waxa la yiraahdaa ilaa 35,000 oo fikradood ba maalintii qofka ku soo dhaca intee go'aan baad maalintii qaadataa bay kula tahay go'aamo fara badan haddaba maskaxdan marka intaad meel fariisato waa inaad diyaar u tahay inaad program garayn karto ood ku program garayso waxa danteedu ay ku jirto mindsetka ay bini aadamka dhammaantood qof kasta oo dunida joogaaba uu ku taagan yahay ee maskaxdiisu ay tahay baa noloshiisa ka dhex muuqda haddii noloshaada marka aad mar walbaba ka buuxiso oo maskaxdaada ku program garayso in isbedel uu imaan in nolosha tan aad u xaqiijin doonto hadafkii iyo goolashii iyo wixii aad rabtay nolosha tan inaad xaqiijiso dhammaantood xubnahaaga way u sahlanaan inay u dhaqaaqaan laakiin inta maskaxdu ay wax walbaba isbaara ku soo hordhigi oo ka warna dad ku guul daraysato oo ka warna heblaaye maxay ku dhihi doontaa oo hebel muxuu ku oran doonaa hebel iyo heblaaye bini aadamkani qof walbaba tiisuu nool yahay isagaa tiisa la rafanaya haddii bini aadam ay tahay sababta koobaad ee goolashaada hadafyadaada aad nolosha uga lexleexanayso ama aad uga dhuudhuumanayso bini aadamka xagga iska dhig waa 9 buu ku dhashay aduu kula mid yahay hooyo aabba dhalay isaguba tiisuu la rafanaya taada adigu marka ee kaliya qof bini aadam ha ka fiirin inta marka maskaxdaadaasu programka ay ku socotaa ilaa computer walbaaba hadba programka iyo memoryga ku jira inta uu la eg yahay ba qiimihiisu jooga computerada qaar ba $300 jooga qaarna $5,000 bay joogan maxay ku kala duwan yihiin bay kula tahay waxay ku kala duwan yihiin waa mid walbaaba awoodiisa uu shaqo ku qaban karaa inta ay la eg tahay midba midka awoodiisu ay ka xawaara sarreyso waa ka qaalisan yahay kan kale haddaba marka maskaxdaada intaad bini aadamka iyo fikradahooda dhan dhinac iska dhigto waxaad isweydiisaa maxaan anigu leeyahay ku socdaa maalinta ay taas ku soo baxdo ayaadna xaqiiq ahaan noloshaada oran kartaa maskaxdaydu sidii hadba aan u program gareeyay ayay u shaqaysaa una shaqayn doontaa haddaba dhammaantiin intaynu podcastigan kan ku xiga dib ugu kulmin waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh